sida uu coldon fake activist u yahay fake activist. He's a fake activist. dhibaataa ku tihiin diinta islaamka وعاوية نعب وحا وجبيي دين تيدا إيا دادك يغابا waa idinka xajiriinow isqarxiyayaalow jaamacada barwaaqo ayay waxa la yiri wax ka dhigtaa gabdhaha kaliya gabadha intaas laga raacay diinteeda maxaa ka hadlay lakum diinakum walidiin ma ilaahay baad ka soo horjeedaa waxa uu yiri gabadh yaro toob gaaban xidhatay gabadh yaro madax qaawanay maanta xagaad joogtaa muhiimadu weeyaan farxiya cabsiye oo afka furatay ayaa si xun u karbaashtay Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah samafale ku xiran xabsi ku yaala magaalada Hargeysa hadaba Farxiya cabsiye oo muuqato in ay ku jeesjeesaydo Coldoon ayaa ku sheegtay inuu yahay argagaxiso weyn ama xajire inuu yahay dibna uu ku yahay diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliland hadaba gabadhan iyo xisbigeeda ayaa waxay Coldoon ku eedeynayaan inuu yahay argagaxiye ama xajire waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalkeeda iyo sidoo kala xogo iyo macluumaad sida waan ka soo aruurinay waxyaabaha ay baraha bulshada ka wadaan xisbiga ay gabadhani hogaaminayso hadaba daawadayaal intaan muuqaalka u guda galin fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu u baaho una gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed ayna xaqa rasmiga u ogaadaan sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya ganbaleel kana u furanaya hadaba daawadayaal markii ugu horeysay Faadima Cabsiye oo afka furatay ayaa waxay ka hadashay arinta Coldoon waxayna sheegtay in uu yahay argagaxiye oo mudan yahay in xabsiga loo taxaabo indhihiisuna aysan mar kale qorraxda arkin hadaba arintan ayaa dadka Soomaaliyeed ay si weyn uga caroodeen waxayna waxyaabahan oo idil u sameynayaan si ay u hirgeliyaan fikirada ay damacsan yihiin kuwaas way rabaan inay ku fidiyaan jaamacadaha iyo sidoo kale meelaha ay ka fureen magaalada Hargeysa waxay Coldoon ku eedeynayaan arrimo la xiriira inuusan ka hadlin xaqa ay leeyihiin dadka laga tirada badan yahay ee gabooyaha ama waxyaabaha la midka ah hadaba sidaan ogsoonahay Coldoon waa hal shakhsi waana samafale wuxuu qabtay wax uusan qaban Muuse Biixi Farmaajo iyo madax kasta oo Soomaaliya soo martay wuxuuna caawiyaa masaakiinta hadi jeerna waxa uu taagan yahay in wixii qaldan ee bulshada dhexdeeda lagu faafinayo uu ka hor imaado bal hadaba aynu isla daawano waxyaabaha ay ku eedeeyay Faadima Cabsiye oo ay kamid tahay inuu yahay xaq jire inuu yahay qof xun inuu yahay qof aan damiir lahayn bal hadaba waxa soo idil aynu isla daawano sida uu Coldoon fake activist u yahay fake activist. He's a fake activist sida uu yahay ayay umadeenu fake ugu badan yihiin aruureen waxay ku hadlayaan waadiga ay inaad wuxuu u taraysid islaamka waxaad yeeshaan mooyaane waxaad u tartaan baaskaya islaamka threat baa ku tihiin dhibaataa ku tihiin diinta islaamka oo muslimiinta dhibaataa ku tihiin وعاوية نعب وحا وجبيي دين تيدا إيا دادك يغابا waa idinka xajiriinow isqarxiyayaalow tuugow waxbarashadaad hablaha kala dagaalamaysan dib dambe u dhici mayso waana leedika difaacayaa xaq jirka waa laga difaacayaa diinta Ilaahay waxa Soomaaliya dhankii Soomaaliya baabiyay ee jilbaha dhulka u soo dhigay ee dadka hilibkooda maalin walba daadinaya anigu isagoo ka hadlaya maaragtay isagoo ka hadlaya isagoo al-shabaab la dadka sida ka daaya maaragtan anigu maarag Ilaahay iyo rasuulkiisiiba dad ka goostay oo ka soo horjeeda nidaamka iyo kala dambeynta iyo sharafta iyo maskaxda la kubcinayo iyo waxbarashada gabadh yaro toob gaaban xidhatay gabadh yaro madax qaawanay maanta xagaad joogtaa muhiimadu weeyaan maaha shalay maxaad xidhnayd Coldoon Mareykan buu doonay inuu yimaado anigoo noqon oo aan layla soo hadlo leeyahay yiri groupka la yiraahdo African American journalists oo dhowrkii sanaba 4 sanadoodba waxa iyo 5 sanadoodba waxay keenaan 3 wadan ee Mareykan Afrika ay ka keenaan ka soo casuuban qof ya ay ka soo casuuban oo ay la soo xiriirno waxay yiraahdeen qofkan doonayna inaan Soomaaliya ka keeno anu markaa waxaan ku yiri Soomaaliya bal waan soo raadinayaa iyo ariga iyo Soomaaliya bay u tahay waan soo raadinayaa isla ayaamahaas la soo sheegay inuu dameer ka hadlay dameer meel nin ay u rarnayd intuu la kufay ya ay burburtay oo lagu hijabeen waa lagu xadgudbaa dameeraha iyo xayawaanka dameerta halkii uu kaga tago dirxibaa ku galay Coldoon anigu dafiri maayo
wuxuu xaq u leeyahay ilaahay buu soo diray dameertii ayuu sheekadeedii sheegay meel walba lacag baa laga soo diray dhaqaatiirtii baa timid dameertii waa la qaaday waa la kabay sheekada hooyaday baa la socotay naxariis iyo nabadgelyo korkeeda ha ahaatay adduun iyo aakhiraba oo ii soo sheegtay haliyey weeye baan idhi waan la hadlay waxaan ku yidhi gruubkaas ayaa ii diray qof ma doonaysaa inaad timaado Maraykan 2 week oo waddanka lagu wareejinayo oo training ah oo waa kalish ma rabtaa haa buu yidhi soo diyaari waxyaabihii la weydiiyey inuu soo diyaariyo baan ku yidhi orodoo soo diyaari all expenses paid mu odhan dee waa waddan gaale anigu ma socday mu odhan mu odhan waddan gaale weeye anigu tegi maayo diyaar buu ahaa inuu yimaado isagaa laga waayay waxyaabihii laga codsaday soo dhammaystiro waqtigiina waa ka dhacay gabadh baan maalin shishaa loola dagaalamayaa shishuu ula dagaalamayaa cooldoon iskuuladan because hablaha waxbarashadoodu ka soo horjeeda hablaha weligeeda ajnabi dhigi jireen iskuulada waxay dhigi soos iskuulka la yidhaahdo sheekh ku yaala ajnabi baa dhigay ilaa hadda sheekh berigii hore xitaa ajnabi baa dhigi jiray muxuu camuud ajnabi baa wax ka dhigi jiray weligeeda iskuuladeena siiran ajnabi baa wax ka dhigi jiray weligeeda ajnabi iyo kristan iyo weliba catholic u badnaa ay dhigi jireen iskuulada ciday diin ka saareen lama sheegin qof diinta ka sii socdaa yaa ku khasbi kara diinta dee qofkii ka sii socdaa isagoo halka jooga hargeysa aanu haddeer kaga nimi qaade atheists baanu annaga noohiba nagu yidhi you're too intelligent inaad muslim ahaato maxaad ku falaysa waxa lagu hargeysa dhexdeeda ku nool ma bini aadan baa la khasbi karaa you can't twist dadka madaxooda aydiyada kama boggarayn kartid dee aniguna iyagaan u bridge garaynay aan lahaa istakfiran la dhaha oo ilaahay u soo noqdo iyaguna anigay ii bridge garaynay igu lahaayeen siday isu dhaa la xawla walaa quwata illaa billah caliyyil cadiim who can stop people dadka yaa madaxooda qofkii doonaya inuu diin ka baxo yaa cilinka haddaba waxyaabaha ay gabadhani ku hadlayso Faatima Cabsiye waa waxyaabo aan ka turjumayn xaqiiqada rasmiga ah marka coldoon la fiiriyo waa mid kamid ah shakhsiyada samafalka ugu fiican baraha bulshada waxay sheegaysaa inuu yahay fake activist oo ay ka wado ninkani waxba ma qabtaba waa fake waxay naga dhaadhicinaysaa iyada oo wado fikrada kale inay coldoon ka fiican tahay oo ay tahay activist qof dadka dan u wado lama arkin weligeed Faatima Cabsiye oo qof caawinayso ama qof miskiina oo dibban garab siinayso haddaba waxay naga dhaadhicinaysaa inay kaga wanaagsan tahay coldoon arrimahaas oo idil haddaba daawadayaal waxaan leenahay arrintan haddaba daawadayaal waa in dadka Soomaaliyeed meel walba ku nool yihiin Somaliland ha joogaan ama Soomaaliyada kale waa in la isgarab istaagaa sidii loo ilaalin lahaa sharafta iyo cirdiga diinteena Islaamka iyo aqoonta iyo barbaarinta carruurteena haddaba daawadayaal warbixintii aan ka diyaariyay halkan ayaan ku soo gabagabaynayaa inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sida iyo nabadgelyo mahadsanid